janno ayuu aaday ama naar sideen ku dareemaynaa ninkani inuu aaday janno kaasina uu aaday naar hadday jirto se arrinta miyuu dareemay amase arkay qofi horaanba in shakhsi jannada galay ama naar markaana ay arkaan dadka kale oo ay dhihi doonaan haa jannaduu aaday maxaa yeelay dunuub ayuu galay naartuu aaday maxaa yeelay wuxuu galay waa ka xumaay waxaan ula jeedaa gelidda jannada maxaa yeelay acmaal fiican ayuu sameeyey gelidda jannada walaalka su'aal ayuuna weydiiyey ma jiraa wax calaamo ah oo muujinaysa dhimashada qofka kadib si aan u ogaano jannada miyuu galay mase naar annagu waxba kama ogin dabeecad ahaan maxaa yeelay annagu dadka wax xugmiye ma nihin annagu waxba kama ogin qofka waxa u qarsoon iyo qaybaha noloshiisa miyaad ogtahay waxa qofka madaxiisa ku wareegaya miyaad ogtahay waxa aniga aan qalbigayga ku fakarayo waa midaas sababtu ma awoodno inaan wax xugmino shakhsiga ugu wanaagsan waa shakhsiga xugmin doona maalinta qiyaame waa allahana abuuray su-aashaydu waxay tahay haddii xisaabtu ay dhacayso isla laxdada isla shakhsigaa taa waxay la macno tahay inuu dhintay oo uu rartay isla waqtiga waa waqtiga xisaabtiisa ma awoodnaa inaan wax aragno aniga ma garanayo waxaan dhaho isbedel jirka ah labada indhood labada gacmood ama shay kale ma awoodnaa wax gaara inaan aragno walaalkay haddii qof imtixaan u yimaado aan ka soo qaadno inay jiraan 100 arday adiguna mid ka mid a ayaa tahay hagaag marka aad la joogto dhowr sanadood waxbarashada waxaad ogaa doontaa ardaygan inuu arday caqli leeyahay kan inuu dhexdhexaad yahay ardaygaas kale inuu daciif yahay ahaanshadaada arday 100 arday ku dhex jira adiga waxaad awoodaa inaad ka soo qaado in ardaygan uu noqon doono ardayga ugu horeeya ee fasalkiisa sax ardaygaasina waxa uu noqon doonaa kan labaad ee fasalka kaana waa uu dhici doonaa sax ma awoodaa arrinta inaad samayso maya ama haa waxaa kuu suurtagala inaad ka soo qaado marka maxaa yeelay saaxiibadaada waxaad la nooleed muddo sanad ah imtixaanka ayuu gelayaa waa uu ku baasayaa halkaa sug ma awoodaa inaad ka soo qaado maya weligay suurtagal ma tahay inaad ka soo qaado ardaygaas inuu noqon doono ardayga koobaad ee fasalkiisa maxaa yeelay badanaaba si cajiiba ayuu u jawaaba maya taas suurtagal maaha aniga xukun kuma weydiinin aniga waxaan ku weydiinayaa ka soo qaad ahaan maskaxdaada inaad ka soo qaado ma kuu suurtagala inaad shay ka soo qaado ama se ka soo qaadid waa suurtagal inaan ka soo qaado shay maxaa dhacay maxaa yeelay ardaygaasi badanaaba su-aasha si cajiiba uga jawaabaa wixii uu macallinkuna weydiiyo oo su-aala ardaygaasi waa uu ka jawaabayaa badanaaba qofkaas wuxuu noqon doonaa qofka koobaad ee fasalkiisa ee guulaysta waxaa kuu suurtagala arrintaa inaad ka soo qaado sax haa arday kale waa dhexdhexaad arday kalena waxba kama jawaabayo waa uu dhici doonaa arrintaas waa ka soo qaad ahaan wuxuu ka jawaabayaa imtixaanka adiguna waxaad ka soo qaadaysaa inuu noqon doono ardayga koobaad ee fasalka laakiinse macallinka imtixaankiisa ma sixin weli sixitaanka macallinka la'aantii asagoo ardayga koobaad ma noqonayo soo sidaa ma aha waxaa kuu suurtagal inaad ka soo qaado shakhsigaas inuu ardayga koobaad noqon doono marka uu qof dhinto asaga wuxuu la mid yahay qofka dhiibay warqadaha imtixaanka laakiinse suurtagal kuma aha inaad si dhab ah u tiraado ardayga koobaad weeyaan laga yaabee nataa'ijtii weli inaysan soo bixin waxaa kuu suurtagal oo kale inaad wax aad ka soo qaado ardaygaas waxa uu noqon doono haddii aan ku weydiiyo meeqa darajooyin ayaad heshay ma awoodaa inaad ka jawaabto waa maya laakiin wax inaad ka soo qaado inuu ardayga koobaad noqon doono waa laga yaabaa laakiinse ma awoodaa inaad ogaato tirada darajooyinka ee ardaygaasi helay ee ka mida 100 arday ma awoodaa maya laakiin waxaa kuu suurtagal inaad dhahdo waxa uu noqon doonaa ardayga koobaad laga yaabo inuu helay 90 ama 92 ama 95 laakiinse ma awoodid inaad si dhab ah u tiraado maxaa dhacay maxaa yeelay natiijooyinku weli soo ma bixin tusaale ahaan markuu qofku dhinto waxa kuu suurtagala inaad acmaashiisa fiiriso oo ka soo qaado qofkaas inuu yahay qof wanaagsan wax ma xadi jirin hal ilaahu rumaysnaa ilaahay shirki uma samay jirin insha Allah janno gali doonaa laakiinse qofkaas hadduu tuug ahaa qiyaano badnaa ilaahay uusan rumaysnayn asnaamta caabudi jiray naar uu gali doonaa laakiinse natiijada xaqiiqada waxaan ogaa doonaa maalinta qiyaamo marka ay natiijooyinku soo baxayaan idan quraanku waxa uu leeyahay allaha sare waa allaha xugminaya maalinta qiyaamo basharka oo dhan oo dhinteen waa la soo noolay doonaa mar kale maalinta qiyaamo basharkii ugu horeeyay waana aadam calayhi salaam xitaa qofka ugu dambeeya dhammaantood mar kale ayaa la soo bixi doonaa kadibna xukunka ayaa bilaabanaya waxa adigu aad ka soo qaadayso maskaxdaada ah inuu sax noqdo laga yaabo ama qalad marka uu qofku dhinto waxa kuu suurtagal inaad ka soo qaado insha Allah janno gali doonaa insha Allah qofkaasi jirka ayuu sameey jiray waxbuu xadi jiray dadku qasbi jiray wuu qiyaano badnaa naar uu gali doonaa waa suurtagal inaad ka soo qaado tusaale ahaan ilaahay hadduu doono qof inuu dambi u dhaafo asagu shirkiga weligii ma dhaafo quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 48 isla suurada aayada 116 eebe ma dhaafo in lala wadaajiyo cid kale cibaadada wuuse ka dhaafaa wixii waxaas ka soo haray ciduu doono haddaad ilaahay shirki u samayso oo aad caabudo asnaamta ilaahay kuma dhaafi doono dambiga aniga ka shakhsi ahaan waxaan awoodaa inaan dhaho shakhsigaas naarta ayuu galayaa 100% haddii uu shirki sameyn jiray
haddii uu dhinto asagoo mushrik ah oo hal ilaah rumaysnayn oo keliya waxaa ii suurtagala inaan si huban u dhaho naar ayuu geli doonaa laakiinse basharka kale haddii dembi sameeyaan ilaahay subxaana watacaala inuu dhaafaa laga yaabaa haddii uu doono laakiinse ma ogin annaga hadda waxaan ogaan doonaa maalinta qiyaame waxaan rajaynayaa inaan su-aashaada ka jawaabay